salaantii ran kadib waxaan soo dhaweynayaa dhammaan xubnaha sharafta leh ee guddiga farsamo yaqaanada iyo la taliyaasha sharciga guddiga la shaqeeya iyo howlwadeennada kaleba waxaan idin leeyahay soo dhowaada bambaxan ama ma fiicnaya bambaxan ama kulankan ujeeddadiisu waxay tahay inaan horta marka ugu horeysa dad wada shaqayn doonaan nahay inaan waqti horta isu helno muddo 5 cisho ah dareenkeenna iyo xirfadeenna iyo dhaqanka shaqo shaqadu u baahan tahay inaan wadaagno waa ujeeddada koobaad ujeeddada labaadna waxay tahay inaanu daraasayno oo aanu dib u eegno annagoo kaashanayna guddiga hore oo la socodka dastuurka ee baarlamaankii 10aad inaan dib u daraasayno hawshii lasoo qabtay daraasaddaas waxay inoo faa'iideynaysaa inaanan dib u laaban inaanu xog ogaal u noqonno shaqadii inaga horreysay ee labadii baarlamaan ee 9aad iyo 10aad ay qabteen oo isku kor dhisan oo midba mid inuu u dhiibay meesha ay maraysay 5 maalin ee soo socota ajandaha aan ku shaqayn doonno waa ina hor yaallaa waxaana markii aan daraasayno hawsha noo qabsoontay ilaa hadda oo guddiga hore iyo dadkii dastuurka ka soo shaqayn jiray ay qabteen waxaan haddana ka tashan doonaa oon qorshayn doonaa hawsha na hor taalla sidii aan u wajihi lahayn ajandaha marka haddaad eegtaan wuxuu u qaybsan yahay 3 maalin oo hore oo aan ku daraasaynayno xeroosaadkeenna hay-adaha dastuurka ka shaqeeya hanaanka ay iskula shaqay jireen oo MOU ama isfaham uu saldhig u yahay waxaan sidoo kale eegi doonaa riboodkii baarlamaankii 10aad iyo qabyo qoraalka laftirkiisa oo 16 cutub ka kooban maalmaha ugu horeeyo 3 ee 22 oo maanta ah berri iyo berri dambe oo 23 iyo 24 ah intaas ayaan ka fargarayn doonaa labada maalin oo dambe oo 25 iyo 26 oo Arbacada iyo Khamiista ku beegan waxaan ka shaqayn doonaa inaan daraasayno caqabadaha nagu gudban iyo duruufaha inagu hareeraysan isla markaana aan degsanno qorshaha shaqo oo guddigu rabo inuu ku howlgalo maalinta 5aadna insha allahu tacaala annagoo guulaysanay oo naqaana meeshii aan ka nimid iyo hawsha noo qabsoontay isla markaana naqaana meeshaan u soconno iyo qorshaha aan ku wajahayno ayaan halkan ku soo gebagabayn doonaa tallaabada ugu horeysa marka oo aan rabo xubnaha guddiga iyo saaxiibada sharafta oo halkan fadhiya waxaan rabaa ajandaha inaan 5 maalin oo xaanshidaan dhowrkaas xaanshi ah inaan horta aan isla eegno horta intaanan ansixin oo aan maalin iyo saacadaha iyo itemiska ku jira inaan isla eegno oo aan internalize garayno aan yeelanno yacni hadda xirfadlayaalaha hadda noo soo qoray laakiin xubnaha guddigu inay anta eegaan oo maalinta koowaad fiiriyaan qodobada ku jira oo maalinta labaad eegaan oo 3aad eegaan oo 4aad eegaan 5aad eegaan kadibna wixii laga bedeli raba laga bedelo aan annagoo naqaana qaabka aan u shaqayn doono 5 cisho soo socota inaan kadib bilowno intaasaan rabay inaan ka bilowno waxaa kaloo inoo furidda maadaama aan joogno saaxiibaday kaloo halkaan fadhiyo xubnaha dhan iyo xirfadlayaasha iyo burhaan oo nagala jooga guddiga hore waxaa nagala shaqayn doona oo saldhig u ah xubnahoodii intoodii badnaa baarlamaankana kuma soo laaban
howlo kale iyo duruufo kalena waa ku kala maqnaayeen laakiin waxaa saldhig u ah abukaata burhaan waxaa kaloo asna saldhig u noqon doona senator xuseen sheekh maxamuud oo aan rajeynayno maalinta gelinka dambe ama berrito inuu nagu soo beegmo waxaa sidoo kaleeto saldhig u noqon doona abukaata cabdulaahi iyo xubin guddiga la shaqeeyo aada u firfircoon cabdi isaaq iyo nin kaloo la yidhaahdo looyara oo guddiga la shaqeyn jiro la yidhahdo abukaata zakariye oo burhaan iyo xuseen shaqada la hayay marka waxaan rabaa marka dadka halkan fadhiyo akhyaartaha iyagana inay intaanan ajendahana inaan eegno wixii fikir ah oo muhiim ah oo lagu ragga halkan fadhiya iyo dumarka akhyaarta fadhisa ay ku daraysana inaan ku darno kadibna ajendaha inaan eegno